ninkaas odaga ah ee aad xustay hadalkiisa waan arkay. gabadha maalinta gaariga lagu soo qaadayo waxaa loo ballamiyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala oo u kaxeeyo ku yiri ra'iisul wasaaraha shaqo ku siinayo maalmahaas ku noqnoqota xafiiska ra'iisul wasaaraha. ma jeclayn runtii inuu sidaas u hadlo sababtoo ah waxaan u arkay hadal aakhiro iyo adduun qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble farsamada lagu fuliyana alcadaala iska lahaa go'aanadii intii u dhaxaysay uu ra'iisul wasaaruhu qaatay ee arrimahaas ku saabsanaana waan ku qasbanaa gacanta fulisayna mahad salaad waaye cidda dishayna waa al-shabaab. nin caraysan buu ila ka care iyo cuqdad badan ay hadalkiisa ka muuqan. Fahad Yaasiin oo agaasimiin hore ee adna wasaqada Soomaaliya qaranka haya qayb ka ahaa dadkii loo arkay in aad isku hayseen adigoo dhinaca ra'iisul wasaaraha jiray mar uu hadlay waxa uu yiri ikraan tahliil waxa dilay alcadaala iyo maxamed xuseen roble wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo agaasimaha adna wasaqada Soomaaliya qaranka hadda ma hasalo xigaas xildhibaanaha gudina in kama in halin saddexdii maxaad leedahay maanta? waxaan leeyahay runtii horta ninkaas odaga ah ee aad xustay hadalkiisa waan arkay. nin caraysan buu ila ka care iyo cuqdad badan ay hadalkiisa ka muuqatay. ma jeclayn runtii inuu sidaas u hadlo sababtoo ah waxaan u arkay hadal uu micnihiisa ku luminayay. waxa uu ka hadlayna dadka Soomaaliyeed sida ay uga falceliyeen ayaa maaragtay ku filayd iyo wixii dadka Soomaaliyeed ay ka yiraahdeen. kiiska gabadhaas iyada ah aad xustay warar kala duwan baa laga soo saaray oo laga yiri maaragtay muxuu ahaa wax hadda aniga i quseeyana ma ahayn wixii de ninka odaga uu ka yirina waa sidaas aan ku sheegay waa xoogaa nin ay ka muuqatay inuu maaragtay u yara adkaysan waayay wixii ka dhashay hardankii siyaasadda ayay maaragtay ay u ekeed. mana jeclayn runtii inay sidaas ka noqoto siyaasadda waana lagu kala aragti duwanaada waana la isku qabtaa. tan ku saabsan aniga isaga wax oo shakhsi ah dabcan ma jirin. anigu shaqaan ka shaqaynay waxay ahayd in xukuumadda aan ka tirsanaa ee ra'iisul wasaaruhu madaxda u ahaa doorashadaas inay guuleysataan ka shaqaynay. ilaahay baana ku mahadsan waa guuleysatay doorashada. go'aanadii intii u dhaxaysay uu ra'iisul wasaaruhu qaatay ee arrimahaas ku saabsanaana waan ku qasbanaa waan u arkay inay yihiin go'aano sax ah. sababtaan u arkay go'aamo sax ah inay caqabad ku ahaayeen baan aaminsanahay inay doorasho dhacdo. marka taasi waa dhamaatay hadafkii laga lahaana waa laga gaaray waana Soomaaliyana waa ka badbaaday doorashadana waa dhacday annagoo nabad qabnaan maaragtay muxuu ahaa kala tagnay. dadka siyaasadda ku jirana dabcan de qofku waxa wanaagsan mas'uuliyadda hadba ku taale siyaasadda kula jirto inaad fuliso wax ka duwan waxaan maanta ka shaqeeyo ay ahayd. laakiin mandate-ka sida maanta ra'iisul wasaaraha aan sidan hadda ku iri waxaan faranahay oo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre uu faray inaan dagaalka khawaarijta ka shaqeeyo. isagaan ka shaqeeyaa dhab ay iga tahay inuu guuleysto oo laga adkaadaan rabaa. sidaas ay oo kaleeto ayaa kii horena waxay ahayd waajibaadka ra'iisul wasaaraha markaas uu siiyay inaan ka shaqeeyo in doorashadu ay guuleysato iyada ayaanan ka shaqeey. maanta laba su'aal ku soo gabagabeynaya kiiska Ikraan Tahliil aad u xooganaa haddana waa damay weli wixii saxaasta madaxweynaha hadda jooga inuu campaignkiisa qayb ka ahaa ma hasalada mise jooga qayb ka ahaa dadkii aadka hawsha gacanta uga hayeen adigoo ku jirtay ilaa dilkii xildhibaan Aamina ma kula tahay arintaas in dib loo baaro maxaas hadda isleedahay waa loo gaabay? wallahi arintaas horta de shaqadeydana ma aha Xuseen wax hadda aan kaaga sheegi karo oo maaragtay aan kala socdana ma jirto. midda ku saabsan dabcan dadka Soomaaliyeed cadaalad bay ka hadlayeen. madaxweynuhu wuxuu ka hadli jiray cadaalad bay ahayd. dadka kale oo siyaasadda ku jirana cadaalad bay ka hadli jireen. cadaaladna wali waa aaminsanahay waa mabda'eena aragtideena. waxa ka soo haray hay'ado kale ayaa iyaga haboon dabcan waxa hadda socda inay maaragtay muxuu ahaa ka hadlaan arinta aniga shakhsiyadeyda iyo hawlahaas maaragtay la xiriirtana anigu waa ku sheegay waxaan ku leeyahay waqtigaas dawladdu xukuumadeena waxaan ka shaqeynaynay waxay ahayd mas'uuliyadaas doorashadeena gudan. waxyaabaha kale ee xukuumadda mas'uuliyadeeda marka dhacdo ay dhacdana xukuumaddu inay maareyso oo sida ugu fiican u maareyso mas'uuliyadeeda ay ahayd. sidii xukuumaddaasi arrimahaas ay u maareysana waxaan u arkaa inay ahayd sidii ugu fiicnayd iyo talooyinka ugu fiicnaa iyo go'aamadii ugu fiicnaa ee ay qaadan kartay. waxa kalena dabcan waqtiga ayaa sheegi doona. hormoodka warbaahineed daawadaha qiimiga badan oo fadlan daawade page-ka Facebook ee Dulmar Media follow garayso sidoo kale like saaro siina share garayso aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale mahadsanid.